sanadka 2024 shirkeennan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay hadal ka soo yeelay maamulka xabashida Itoobiya kuwaas oo sheegay inay heshiis is-afgarad ah la gaareen maamulka riddada ah ee uu madaxda ka yahay Muuse Biixi. heshiiskaas oo la sheegay in 20 kiiloomitir oo ka mid ah xeebta Soomaaliya lagu wareejiyay Itoobiya. haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah, baadil ah, burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana. ma aqbalayno intaa ka dhulka Soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato. waxaana arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. ninka heshiiskaas soo saxiixay